بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxaan ku suganahay waa masjidka alle ee ku yaala magaalada isku jiro. haddaba waad arkaysaan masaajidkani waa masaajid qabiya ummadda islaamka waxaan ugu baaqayaa inay soo masaajidkan Allah ay soo dhameystiraan. qof kastaaba waxa uu jecel yahay meesha uu seexanayo iyo meesha uu degan yahay inay noqoto meel qurux badan, balse waxa halkan aad ku aragtaan masaajidka Ilaahay inuu yahay beedka aad moodo kharaabka. dadku waxay ku tukadaan sida indhihiina idinka muuqata qadiifada iyo hadib kale ciidaas ayay ku tukadaan bacda iyo qadiifadaas taala meel wax lagu darsado waxa ugu qaalisan beedka Ilaahay, meel la qurxiyo waxa ugu qaalisan beedka Ilaahay. qof kasta oo muslima waxaan ugu baaqayaa anigoo Sakariya Maxamed Ciise waxaan ugu baaqayaa in masaajidka Ilaahay ay ka qayb qaataan sidii ay u soo dhameystiri lahaayeen beedka Ilaahay. ilaahay dhulka ugu jecel yahay adduunka waa masaajidada, waa dhulka kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu caabudo. qof waliba ha ka qayb qaato sidii masaajidka wax uga geysan lahaa waxna ugu darsan lahaa. qolaalayaal waxaanu ogsoonahay qofka adduunka waxa uu joogayaa waa in yar, waxa uu la tagayaa waa amalkiisa. marka waxaan idinku baaqayaa alla darti markaan masaajidkan soo galay waan khushuucay oo runtii aad baan uga naxay, aad baan uga walwalay dadku meeshay ku tukanayaan, dayaca ka muuqda iyo dadka guryahooda say u galayaan oo qurxinayaan. masaajidku waa qabiyo, wax dhaqaalaha loo hayaana ma jirto. halka aad muuqataan wada artaan waa cirkiiba muuqda. marka waxaan idinku baaqayaa alla darti inaad maartay u soo caawisaan beedka Ilaahay. qofkii beed Ilaahay dhisa Ilaahay jannada ayuu beed uga dhisaa. marka dhamaantiin waxaan idinku baaqayaa qof kasta oo muslima meel kasta uu joogo inuu masaajidka Ilaahay qurxintiisa uu ka qayb qaato. qofkii ka qayb qaata Ilaahay waxaan uga baryayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu miisaanka xasanaadka ugu daro, Ilaahayna aakhira iyo adduunba uu qurxiyo. saasaan idinku baaqayaa. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.